masjidka Albani waa mid ka mid ah masaajidda Alle oo ay shanta salaadood si joogto ah ugu ogaan dadka musaafarka ah iyo kuwa degan xaafadda Xawataako ee degmada Wadajir. Jameecada ayaa ku arkay masjidkan wax aan horay loogu arkin masaajidda Xamar. Toddobaadkan gudihiisa ayaa waxaa xirmay suuliyadii masaajidkan qaarkood. markii la isku dayay in la cilad bixiyana waxaa laga soo saaray cirbadaha loo isticmaalo daroogada oo aad u tiro badan, taasoo amaka ku noqotay dhammaan maamulka iyo jameecada masjidka sida uu inala wadaagay Maxamed Cabdicasiis Jeelaani oo kamid ah imaamiyada masjidka. masjidkan waxaa ka dhacay darad dhacdo oo ugub aan ku aragnay. waxaan aragnay masaajidka mas'uuliyiin isxiritaan kadib haday isxireen baaritaan hadaan sameynay marmar qaar way dhici jirtay inay isxiraan wasaq iyo waxyaabahaas ay xirtaan arki jirnay. kadib hadii aan farfareen aan birar iyo wax u isticmaalno wixii ba bixi jireen. marka darad waxaan la yaabna aragnay wixii wax ka duwan aan aragnay. hal mas'uuliyihii waxa xiray saliingo iyo bacyihi saliingada laga tooray cirbadihii oo la isduray. waxaan u badanaynaa inay yihiin saliingooyinka ayaamaan dambe oo kusoo batay baladkii oo daraagiskii waxyaabihii la isduray inayna u badanaynaa. wallahi wax hadda intaas waa aan dhihi kar ma ahayn ilaan ninkii arkay oo hawsha gacanta kula jiriyaan ahaay oo dhinac ka qabtay oo dhinac ka duugay oo soo bixinay wax la tiri kar ma ahayn. goda u faagnay aan ku duugnay wixii aan ka soo bixinay wax mas'uul dhan xiray saddex mas'uul wax oo la qiyaas kar inay ahayn waa dareemaysaa. maamul ahaan markii maxaa dareentay? wallahi waxaan dareennay waa wax la yaab leh in masaajidkii oo waxyaabihii qurunkii in laga fogay ahayd in masaajidka loo soo raro oo dareemi karta dhibka ay leedahay. marka waxaan leeyahay yaa keena isleedahay والله dabcan waxa keenay isleenahay qoliyahan isticmaala hadii ahaalad dhalinyarada ama hadii ahaalad dadka oo daraags isticmaala keenay isleenahay qof kale aan isleenahay oo keeni kara ma jirto inay meelaha banaanka kala soo cararaan oo ayaamahan dam fiidiyoy waxba laga duubay inay cabsadaan masaajidka ay oo la soo doontaan musqusha ay imaadaan xiliyaha oo masaajidka musquliyi laga maqan yahay salaada markii laga baxay kadib amal firaaqada inay ka faa'iideystaan ay imaanayaan musqusha galayaan wixii isku durayaan marka kadib qashinka meesha ku ridayaan. marka iika keenayna isleenahay hadda qof kale oo keenay aan leenahay ma jirto oo iika ahaanin. maaha wax sahlan in cirbado laga soo dhex saaro meelo ka mid ah beedka Alle oo inaga mudan inaanu ilaalino nadaafadiisa iyo badqabkiisa, balse tani waxay ina tusinaysaa in markaasi aanu la socono dhaqdhaqaaqa dhalinteena oo inta ugu badan la sheegay inay yihiin kuwa isticmaala cirbadaha daroogada iyaga oo markaa ku isticmaala wadooyinka xaafadaha waliba si dhow Maaleysi ah, balse hadda dhex keeneen masjidka Alle sida ay qabaan culimada diinka masjidka. kulli horta masaajidkan Baytullah waa ilaahaas kale qof la mare waanaga wada dhaxaya kan wax sameeyay iyo kan kale waa ka wada sameeyeen inay dhooraan oo ilaaliyaan waajib wada saaran waay. laakiin waxa waay dad shaydaan iska duubsaday oo barnaamijyada sameeyaa marka kuwaas waxaan dheelayn Allah soo hanuuniyo. dadka kale waxa gado ama meelahaas sameeyana waxaan dheelaa Ilaahay ka cabsado wax ka fiican heleysaan wax kale raasida taasaan dheelaa. kulli masaajid inta ka dhacdeen ma aqaan laakiin masaajidan u sheegay oo arintaana qabsatay ogaadaan idii oo aan u tagay waa jiraan oo aan ku buraariyay arintaas masaajid ka dhacday waa jiraan. dareen wax la yaab leh inay tahay waxaan wiligiis la arkin oo noogu cusub. marka waxaan gaarsiinaynaa dadka inay waxaas ogaadaan ee iska ilaaliyaan. masjidkana waxa waaye masjidka Ilaahay ka mid yahay, Ilaahay meelaha uu leeyahay ka mid yahay. marka qof walba inuu ka digtoonaada oo si gurigiisa u ilaalina camal waa inuu masjidku ilaaliyaa. Maxamed Yaxya Jiino, Muqdisho.